السلام عليكم عسر wanaagsan iska warama asxaabta ma fiican tihiin waxaan idin rajeynayaa khayr badan iyo caafimaad idinkiyo faamiliyadiina waxaan sii wadanaynaa sheekadeenii oo ahayd maxay heedaya markaan maraykanka nimidnay abihii igu yaabka badnaa ama waxyaabahan arkay ayaan ka sheekeynayaa maanta yaa safar dheer kadib ee soo soconay 30 cisho nala soo socoteen isu soo raacnay halka nimidnay haablihiina soo dhaweeyeen maxaa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey haddaba aan idin sheegay markii ugu horreysay hoteelka nala geeyey gidaarada looxaan waxaan sugaynaa anigu ma hayn horta dadka ii sheegay xiiseeya ama doondoona muxuu ahaa qofku markuu dhoofo ama dadka dibadda jooga waraystaa nolosha ka waraysta guryuhu waa sideed u nooshihiin cashuuraha maxay weligii qof hadduu dhoofo markaasay ugu dambeysay inaan nabad khayr idhaahdo mooyaane ma weydiin jirin maxay ahayd noloshu waa sidee iyo qaabkay dadku u nool yihiin iyo ma xiisayn jirinba mana waraysan jirin dadka laakiin maalintaan nimidna maxaan aragnay meeshan dul soconnaba qarshac qarshac una tiraahdo airline guryaha waxaa laga sameeyey waa looxaan waxyaabihii igu yaabka badnaa haya daba catabad markaad fuulaysid gargariir uundee hallaba ayaa kula dumaa waxaan ya ilaa waxaan nahay dad dhagax iyo sibidh iyo dabaqyada xitaa la saarsaaray wax adag oon la dareemin xitaa oo dareemaysa inuu adag yahay laakiin halkan way ka duwan tahay waa wada looxaan guryahoo dhan waxaa laga sameeya looxaan meel walba waa loox yaabnayo aragnay dhinacuun xajisadii gidaarku masaawiru taataabana qarshac qarshac un bidhada kaniifka markaad tegnaa mas-uuligeen isdhahna bal maydha baadkii baan ka baqaynaa inuu meesha naga hooseyso uu ku dumo yacni waan yaabanaa muddo bil dhan ayaan wallahi isla sheekaysanan lahaa waa maxay adduunyada natfaraa lasoo gashay inaad soo gasheen bisinkee yaa jannadaad usoo socoteen ma looxaantan buu noqday laakiin wallahi waxa ugu sameeyey markii dambe waraystay waay looxaantan loo sameeyey maxaa ma sibir la'aan baa dhacday ma dhagax la'aan baa dhacday markaasaa lagu yiri maay wadanku baraf buu leeyahay marna kulayl aad u noqdaa aduu 3 bilood oo samarka ah waxa loogu sameeyay looxaantan hiidkan iyo waxan iyo diiramaad inuu noqdo in dadku ku jajabin ku silban marka catabadaha fuulayaan baraf uu da'o adigu saas markii dambe laygu sheegay ileen markaad ka timaadid maxay ahayd wadan kale oo ka duwan meeshan wax waliba waxa wuxuu kugu noqonayaa qof reebaadiyo kale inaad tawadu fiirsanaysaa adigu taas horta way igu darnaydba guriga aniga kayga yar qarjac un buu idhahdaa allaba ayaan kugu dumaa markaasaa hadduu ilmuhu carcararana xaafadda kaa soo hooseysa oo ku imanaysa dhagdhag iga aamusi baa lagu ilmaha yar iga jooji uu carcararayaa dama idinkaa looxaanta samaystay maana looxaanta idiin sameeyey adigu waxayse ahaataba waxa ku xigta haddana barafkii markuu da'ay gaari ma haysatid dadkii waa wada mashquul cid walba dantiisa ku mashquulsan tahay haddaad istiraahid wax soo iibso mar uu barafku da'ayana waa nimidnay seed yeeli jaakeed kaa aabihii cuna un xidhnow adiga ilmihii yara isjiita lug wallahi xitaa qur-aankan geyn jiro lug baan ku geynayay sii wad soo lug un soco markaan hadal igu daalanay sanad iyo 2 bilood meelahan sanad iyo bar ku dhawaad unbaa lugeynayay taxi meelaha fogfog markaan tagay uber taay waxaas iska raaci jiray laakiin magaaladu iska kooban tahay ma sii kala fogfoga waan lugeyn jiray inta badan aniga iyo walaasho iyo kayga yar dee walaalkiisa waa nin markuu dhowr bilood iska yara joogo dee saa ugu soo dhacday waraaqadiisii shaqo markiiba saa ku tuurtay gaadhi buu iska soo iibsaday annaga laakiin 8 bilood ugu horreysay log yaa inaynantu jannadii bay tagtay aan lugeyn unde ma xuma waaba caafimaad laakiin barafka dhexdiisa markaad lugeynaysid waxaad ka qaadi kartaa xanuuno rheumatism luga xanuun lafa xanuun yaa kaygana waxay kaga dhigto igu celi halkaa iga soo kaxaysay ma raba meeshan ilmo yaroo yaaba barafka waan ciyaarinaan ciyaarna maadhaa hooyada macaan marka waxyaabihii igu yaabka badnaa ayay ka mid ahayd barafka da'aya la dhex socdo gaari haysan baski aanad garan meeshaad ka raacaysay aanad maxay heedaya weliba meeshan u lugeynaya wallahi waxaan gashan jiray directionka anoo lugeynaya adigu yaa hadal isku daanin qofku markuu wadanka ku cusub yahay waa challenge waa hawlaha ugu adag ee ugu yaabka badan leh markaas 6 bilood barafku da'ay ku dhabaysanay barafka dhexdiisii qabowgaas
noloshanaad yaaban tahay de isleedahay naawa maxaa waxaad faraa la soo gasho dad kale kule maraykan bay tegtay haye ka waran dee maraykankii anu cidna ma soo wareysan jirin markaan afrika jooga ma odhan jirin ka warrama maraykankii iyo halkaa tegtay yurub ka waran qofka maba weydiin jirinba waayo man xiisan jirin laakiin dadku soo tahriibaan ku dhalaa dadaad doonaysiin nala ark marka wallahi waxyaabahaasoo kale wax la iloobi kara maaha inaad soo 30 cisho soo halgantid ood soo daashid ood markaad halkan soo gaadhana had la kulantid guryo aad la yaabaysid baraf aad la yaabaysid oo maxay ahayday cirku wada caddaanayo waxyaabahii iga yaabiyay ahayd wallaahi midda kale xitaa tigaadooda malaha niger maaha baan isdhahdaa ilaahay imikadan waayo markuu barafku istaagaba dhowr bilood kadib ama 2 bilood kadib markaaba way soo baxdaa innaga teeni afrikana ma soo baxdo ilaa iyo maxay ahayday dib loo beero oo laga shaqeeyo la hagaajiyo marka garan maayo de wallahi si xaaladdu u socotee laakiin waxyaabihii iga yaabiyey waxay ahayd ii sheegaya labadaasa igu darnaa horta tu kale way jirtaa iyaduna oo ah markaad meel gashid soomaaliya ilaa lagu idhaahdo fadhiiso lama fadhiisto maraykanka waad weydiinaysaa ma fadhiisan karaa ama qofku ku idhaahdo fadhiiso unbaad fadhiisanaysaa meel xitaa ilaa lagu idhaahdo soo gal ma geli kartid ilaa lagu idhaahdo soo gal umaad galaysaa jaf meeshii layska gelaya ma jirta deyaa meeshan saaxiibkii baala iyo habroodaagii baala iyo waxyaabahaas kama shaqeeyaan maraykanka yaa waa inaad sugtid laynkaaga sabirka ayaa lagu bartaa alla maxaan xasuustay dad fara badanoo maxay ahayd sakiina meesha cuntada ka iibsanaya oo bisinka afka kaasoo galay ku hanjabiyo oo si doonaan kaa yeelay halkan layn baad galaysaa waad sugaysaa ilaa soo gal lagu dhahdana ma gelaysid warqad ba lagugu dhejiyay meel walba warqadan baad akhrisanaysaa halkaas akhriso halkaasaad ka arkaysaa informationka waqtiga la furayo waxay u xidheen sababta loo xidhay albaabkana lagu soo jebin jirayba laakiin imika waa inaad la socotiin ciddii rabto inay timaado ama ay soo baxdo ay timaado maxay ahayd ama waddan kale un dee adigu aan ahayn maxay afrika iyo dhulkaas waa afrikaanka oo dhan isku wada dhaqankeenu isku wada dhadhow yaho wax walba waxaan rabnaa ismaqiiq inaan ku galno dee ismaqiiqi ma jiro halkan sugaysaa laynkaaga saaxiib sabirka lagu bartaa maraykanka iyo qurbaha oo dhanba sabirka ayaad ku baranaysaa yaa cuntadaada aniga saa idinku sheegay maalin horen kusoo hadlan malaya tiktokayga lahaa qashinkaagana meeshaad wax ka cuntadaa qaadaya taragaagadaa qaadaya qashinkaagadaa qaadaya meesha qashinka ku ridaysaa shidaalkaagadaa ku shubanaya gaadhiga hebelow igu shubay halkii fadhigii lagu dirirayay ma jiro wallaahi yacni waxyaabaha nidaamka aan ku kala duwannahay iyo waxyaabaha horumarka lagu gaaro waxaa ka mid a nidaamka nidaam hadduuna jirin iyo kala dambeyn iyo ixtiraam qof walba lagu ixtiraamayo muxuu ahaa xilkan uu hayo dee soomaalima baaba'deen baan u malaya anigu laakiin imika halkan qofkaas xil baa loo dhiibay booskaas ku maamulaya siduu kuugu maamulo iyo siduu qorshaha u dejiyo unba adiguna ula soconaysaa wax cidhifka lahay iyo lasdaba jiitamaya iyo ma jiro marka idinkale waxaa idinkula talinaya dee ciddii afrika joogta maa rabta inay soo baxdo mar kastaba xasuusnaada fiidiyoga faadmo yaa meel lama gelaysid amar la-aan ma fadhiisan kartid kursiga ilaa lagu dhaa fadhiiso yaa maxay heeday kuna sii xisaabtama guryo aad usoo socotid maaha guryo dhagaxa lama maydho biyo laguma shubo lama masaxo biyo dawooyin bay leeyihiin in yaro niqasoo biyo ah waa la yara marmarinayaa un biyihii fulululux maanta dhan biyo jiid alla maxaan jabuuti xasuustaayo markuu roob da-aba mar walbu roob da-aba waad maydhaysaa dhiskoobihii iyo waxaad ku maydhaysaa bahashii waad soo maydhay soo biyo jiid haddana tuwaalkii qaadaya baaldi masax ma jirto walaalahaasoo dhan hawla kaniifkii maanta dhan mafiiqda lagu maydhayay ma jirto dad biyo ku shubtid looxan uu bararayaa xaafadda kaasoo hooseysana way ku iman dowladdiiyo duulaysana way ku iman marka adduun kala wada duwan weeyaane xisaabta ku darsadayaa inaad meesha soo socotiin ay ka duwan tahay halkii hore oo sabirkana sii baratiin intaad halkii joogtiin sabir 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 yaa dulqaad baa loo baahan yahay dulqaad ixtiraam hadalka ku hadlaysidna intuuna kaa soo bixin waad sii miisaamaysaa horta hadduu iska kaa soo baxo ay kuu dhammaato yaa
saamkaagana kama hormari kartid qofka ya haddii xitaa ka meesha jooguna arkin ka kaa dambeeya ku arkaya adigoo laynka sii qaldaya waxa kaloon idinku daraya iyadana qofkii raba inuu waddankaba ka baxo ama uu tago ii sheegay waddan ka duwan waddamada afrikada iyo maxay ahayd soomaalida ay leeyihiin haddaad gaari baranaysid ruuliska buug yar baa jirta oo la bixin jiray hargeysa mooyana xasuusatiin qolada caalami la dhahdo green ah anu horta berigaan baranaya 2010 waxay ahayd 15 drivinka gaariga engala caalami meesha la yidhaahdo buuggaas siduu yahayba markaan ka waayay saynankan iyo waxaan ku yaala dee meesha meel baaban dhigtaba oo meel buu ku xaraysan yahay buugga maalintii bay ugu dambeysay on buug akhriya yacni sign ku waxaysan yahay roadka xagganba ka maris xaggan ka maraysa waayo waddanku maba leba dee waxanoo calaamadahan iyo nidaamkan iyo stop sign iyo waxaan oo dhan male meel baan iska dhigay dee dameerkaagada iska wata halka may noqotay imtixaankii markaan maris idhi uun baaba haddaba kii kombyuutarka lagu marayaa ee bermidkii ku dhac 2 jeer baa ku dhacay sababtuna waa maxay dee bayskii markaan halkii joogo buuggii waan soo xareeyay soo maa oo waxaan idhi waxaan calaamadahanba maba jiraan maxaaban ku falay waa iska xareeyay halkan ilaa iyo aad waxaas oo dhan kala garatid oo gobol kastaba aad baratid maxay ahayd nidaamka uu ku shaqaynaya iyo muxuu ahaayey ruuliskiisa imtixaanka ma baasaysid marka waa inaad horta imtixaanka muxuu ahaayey inta halkaad joogtiin buugaagtan xaraysaneen la barkanayay soo saartiin ood akhridiin calaamadaha kala baratiin markaana ku fududaanaya dee markaad waddan kala tegtid gaari wadistiisa laakiin haddaan nidaamkii sayniskii waxaanaad la socon calaamadahan buugga kuugu qoran waad ka dhacdaan kuuri halkaasina iska soo hagaajiyaa waxaan u malaya dadka halkan markay yimaadaan lacagunbaa la eryadaay cidna ma xasuusato waxaasoo information ah waa waxyaabaha qofka muxuu ahaayey ku adkaynayana nolosha ama qofku uu cidhiidhi dareemayo hadho mar walba uu leeyahay waxaan maxaa kuugu hagaagi laayay laga yaaba gebigeena baabuur waan soo wada wadanay laakiin maxaan wadanay dee dameer baan wadanay cidi ku weydiinayn muxuu ahaa laysan cidi ku weydiinayn laynka halkan la mar xaggan kale la mar meesha doonti baa marsanaysaa laakiin xaggan laynka markaad socotid haddaad dhaafisid baba lagaa daba imanaya ama kamarada ku sawirayaan marka fadlan intii joogta afrika ciddii diyaar u ah inay soo baxdo iska sii hagaaji waxaasoo dhan aan kuu soo sheegay yaa marka intaa soo hagaajisid dee diyaar baad u tahay inaad iska qabatid dee caalamka laakiin haddaan intaas soo hagaajin waad nala galgalani uun dee dadka qaar baa idhahda annaguba waan soo jabnay ha jabaan maxaa nagu kalifaya inaan wax u sheegno dadka walaalan isbaxa sidaya waad ii soo sheegayaa fideogayga qofkii daawada ka faa'iidayso walaalo waa information muhiima meesha kugu qoranaya waa inaad soo baratid waxaasoo dhan si soo tareengaraysid u timaadid adigoo tareengaraysan yaa markaana dad iska qaban karaysaa meel kastoo tegtid dubay teg ama teg yurubta ama meelsha doontid mar ruuliskaas dad iska soo saxdid yaa od la sii haysatid maxaa kaa horeeya markaad meesha timaadid iska socon maahan sida yadii dee waa iska dhex galgalan uun dee alxamdulilah marka ilaahay baa mahadda leh maskaxdayna wada siiyey dhammaanteen marka idinkuna waa inaad dadaashaan intii waddankii joogta intaad halkaa joogtiin wax walba iska soo yara hagaajiya waa idin salaamaya aad iyo aad maca salaama waan baxayaa باي باي يسود عيانا يدي سود عيه هيلوبينا لايك سبسكرايب شير channel كيغا هيلوبينا أنا أصحاب هذا وسي جود بي عن information أما شيكو وحنا سود عيبة سلافون أدوغو يا خيرك ولا سلافيا سلافيا خيرك مع السلامة وتحبون ما حبا وتأكلون التراث أكلا لما
مولاي إني ببابك أطرق بابك بقلبي ومنيتي في رضاك، أنت الذي أرجو عفوك فاغفر لي ذنوبي. مولاي إني ببابك أطرق بابك بقلبي، مولاي إني ببابك فاغفر لي ذنوبي.